بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعن وناكسن داوديال meel walba oo joogtiin iyo suulbad inoo maqlaysiin ku soo dhowaada sheekooyinkeena xiliyadan oo kale inooga barateen ee ku saabsanaa qiso iyo waano aan had iyo jeer la uga hadalna xaalado muhiim ah oo ay taa qofku inay wax ka barato warbixinteena maantay ama qisadeena aan ku soo qaadanayna YouTube-keena qiso iyo waana TV waxa ay noqon doontaa oohintii aabbaha iyo ninkii taajirka ahaa ee waaye hurdada maxaa ka ooyaya aabbe maxaa sababay maxay ahayd sababta aabba uu ku ooyi karo miyaad qiyaasi kartaa arrintaas maxayse tahay sababta nin taajira oo dhaqaale haysta oo u awoodi waayo inuu helo hurdo maxaa u diiday hurdada maxaa sababay miyuu waayey dhacagtiisa iyo taajirnimadiisu u gooy weysay hurdo bal arrintaas waxaad uga bogan doontiin qisadeena maantay ee qiso iyo waana TV fadlan subscribe leeg iyo share siya daawadayaal waadna ku baahsantiin la socodkiina waa hagaaga waxaan ku daafuraynaa qisadeena maantay oohintii aabbaha waa sheeko qalbi taabad ah oo si weyn dareenka u soo jiidanaysa qof walba markay maqasho aabba ooyey haddii aad weli haysato inuu aabbaha uu yahay midaan weli ooyin waa inaad ogaataa oo aad dhegaysataa sheekadan si aad u ogaato xalka kama dambaysta ah iyo aabbaha xilliga ooyin ay suurtagal ka tahay haddii aad weli aabba haysato oo ku jecel fadlan daqiiqado jooji muuqaalkan oo dhegayso ilaa inta uu ka dhammaanayo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad maanta haysato qof berri aadan codkiisa maqli doonin oo aad raadin doonto laakiin aad mar dambe maqli doonin si uu waano iyo tusaale kuu siiyo waxaa jira dad nool oo aan jeclayn hadda inay weli u nool yihiin aabbayaashooda laakiin ma dareemayaan macnaha iyo faa'iiday la ag joogaan waxay taasi aad uga fogeynaysaa inay xigmadda iyo wax badan oo aabbayaashu hayaan la fahmo si aamusan ayay inta badan laga yaabay inay u ag joogaan ama way iska qaylinayaan intii ay xog fiican ka heli lahayeen inta badan aabbayaasha sida lagu yaqaano ma cabanayaan xilliga xaaladaha adag ay kugu korinayaan maalin walbana kuma dhahaan waan ku jeclahay laakiin habeen kasta qalbiga ayuu kaaga ducaynayaa oo gacmaha rabbi kugu taagayaa siduu kaaga dhigi lahaa qof nool sheekadan waa sheeko aad si weyn uga dheehan karto inay leedahay qalbigaaga erayo soo jiidanaya waana qisada aad ka ogaan karto jacaylka aabbihii qofka uu qabo maalinta uu waayo iyo macnaha uu kugu fadhiyey maanta uu kula joogo culays badan ooda dareemayn marka ay dushaada ku soo laabato ayaad dareemi doontaa qoraalka aan kula wadaagayo magaalada mashquul badan ayaa waxa ay isla joogay wiil iyo aabbihii waxaa wiilku had iyo jeer low ahaa mid iska dhex gelaya sawaxanka iyo buuqa magaalada ay ku noolaayeen waa iska dhalinyaro wuxuuna oran jiray aabbe waxaan aadayaa salaxyada iyo ciyaaraha meelaha lagu ciyaaro inta badan may jirin xiriir xooggan oo la samayn jiro odaga ama uu ka caawin jiray arrimaha adag ee nolosha ku gadaaman magaciisa waxaa lagu magacaabaa ninkaa yar saalax wuxuuna ahaa wiil aad u firfircoon saaxiibo badan ayuu lahaa teleefankiisa gacanta kama dhigi jirin oo maanto idil uu ku hadlayaa maalin walba waxa uu ku noolaa inuu isticmaalayo baraha bulshada inuu soo jeedinayo ama dhegaysanayo sheekooyin qosol iyo sidoo kale nolol aad u malaynayso inaysan weligeed aysan ka dhammaan doonin ama uu ku dhex jirayo laakiin guriga oo ku noolaa waxaa ku jiray nin waayeel ah oo qalbiga si tartiiba oo u jabay maalin kasta waxa uu oran jiray waxa aad samaynayso marna munaasab ma ahan ee maad eegtid
noloshaada fog. ninkaana wuxuu ahaa aabbihii saalax waxaa la odhan jiray maxamed, wuxuuna ahaa nin dadaal badan oo cimrigiisa inta uu jiray horay ugu dadaalayay inuu u mariyo qoyskiisa. gacantiisa waxaa ka muuqday shaqo adag oo uu soo qabta had iyo jeer. indhihiisu waxaa ku jira jacayl iyo sidoo kale arrin aad looga dareemi karay inuu doonayay inuu qariyo mar kasta culeysyadiisa. maalin kasta marka uu saalax guriga yimaado, aabbihii wuxuu isku dayi jiray inuu la fadhiisto. wiilkaygiiow, sidee ayaa tahay maantay? maxaad qabatay? miyaad akhristay cashirkaaga? miyaad qabatay waajibaadkii lagu soo diray ee iskuulka laga baahnaa? laakiin saalax isaga oo taleefankiisa eegaya ayuu odhan jiray, waa caadi aabbe, waan qabanayaa hawshaas la iga rabo. kadib qolkiisa ayuu iska geli jiray. aabbihii wuu aamusi jiray, laakiin qalbigiisa wax badan ayuu rabay inuu ka sheego. laakiin wiilkiisa ayaa u muuqday midaan inta badan eeganayn waxa ay dantiisu ku jirto. habeenada ka mid a ayaa aabbihii la fadhiistay bannaanka hore ee guriga isaga oo eegaya cirka. saalax ayaa ka soo baxay isaga oo si degdeg ah u ordaya guriga. xaggee ayaad aadaysaa wiilkaygiiow? ayuu ku yidhi aabbihii. saaxiibaday ayaan la kulmayaa, ayuu ugu jawaabay. aabbihii ayaa si tartiiba u yidhi, wax yar ma ila fadhiisan kartaa? saalax ayaa yidhi, haa, laakiin si xanaaq leh ayuu ula hadlay oo odaga xaggiisa u soo aaday. aabbaha ayaa waxa uu yidhi, miyaad daahaysaa oo aad doonaysaa inaad u orodo halkaad u socotay? waxa uu yidhi, haa, miyaan bixi karaa? wuxuu ku yidhi, haddaad sidaa door bidayso waad bixi kartaa. isagoo og xaaladda uu ku jiro, aabbihiisna aan ogeyn waxa uu kala hadlayay iyo qalbigiisa sidii arrintan u taabatay, ayuu sii orday. aabbihii kursiga ayuu mar kale ku haray isaga oo aamusan. indhihiisa waxaa ka soo dhibcayay ilmo yar, waxauna hoos ka eegayay sida ay wax walba u soconayaan, isaga oo la yaaban wiilka iyo mustaqbalkiisa. waxaan rabay oo keliya waqti yar inaan wada qaadanno. maalmo ayuu sidaasi socotay oo dhowr jeer ayuu ka dalbaday. saalax weligiis ma uusan fahmin aabbaha sababta uu mar walba u doonayo inay wada hadlaan. waxa uu malaynayay aabbuhu inuu waayeel noqday oo keliya, laakiin ma uusan ogeyn in waayeelka qaar aysan doonayn lacag, aysan doonayn hadallo kale, laakiin waxa ay doonayaan oo keliya ay tahay inaad la joogto oo aad u sheekayso oo aad mar walba halkaasi ku wada hadashaan. inta badan waalidka ayaa jecel marka ay da'doodu weynaato inay carruurta la joogaan oo ay isla sheekaystaan. weliba waxay dib u jeclaadaan la sheekaynta carruurta, sida marka ay yaryar yihiin carruurtaba u rabaan maantoo dhan wax u sheekeeya. maalin roob culus uu da'ayay ayaa saalax guriga yimid. habeenkii dambe guriga waxa uu ahaa mid aamusan, wuxuuna maqlay codad ooyaya iyo dad shanqarahooda soo baxaya. qalbigiisa si lama filaan ah ayuu u gariiray. markuu gudaha u galay waxa uu arkay dad badan oo fadhiya. hooyadiisa way oynaysay. saalax isaga oo naxsan ayuu yidhi, maxaa dhacay? qofna markii uma uu jawaabin. kadibna adeerkiis ayaa gacanta qabtay, waxaana uu ku yidhi, aabbaha ayuu dhowr mar ku celiyey. qalbigiisa ayaa istaagay. aabbaha wuu u geeriyooday ayuu adeerkii markii dambe ugu dhammaystiray. adduunka oo dhan ayaa mugdi noqday. saalax lugaha ayaa qaadi waayey, wuxuuna galay qolkii aabbaha. sariirtiisa ay taallay
kursiga uu ku fadhiisan jiray. aad ayuuna u aamusay markii ugu horreysay. waxa uu dareemay cidlo aan cidna aysan jirin inay wax kala qabanayso. maalmo kadib markii dadka ay kala tageen, saalax waxa uu galay qolka aabbihii. wax walba sidii hore ayay ahaayeen. saacaddii, kitaabkii, maraayadii indhaha iyo urkii aabbihii intaba sidii ayay u ahaayeen. miiska kursigiisa waxaa yiilay taleefon duug ah. saalax markii uu furay waxa uu arkay codad la duubay. mid ayuu furay. codkii aabbihii ayaa soo baxay. wiilkaygiiyow saalax wuu gariiray mar kale isaga oo maqlaya codka aabbihii. aad ayaan kuu jeclaa ayuu yidhi. anna aan aad u jeclaa mar walba inaan wada joogno, laakiin weligay si fiican kuuguma sheegin. ilmo ayaa ka soo daadatay wiilkii yaraa indhihiisa. codkii ayuu sii socday oo aabbihii oo ku duubnaa halkaas. mar kasta oo aan ku idhaahdo ila fadhiiso, ma ahayn inaan waqtiga kaa qaato. waxa aan rabay inaan dareemo inaan weli muhiim ku ahay. saalax oohin ayuu la dhacay, wuxuuna furay codka kale. wiilkaygiiyow, haddii maalin aad codkayga maqlaysid aniga oo noolayn, ogow inaan ku faani jiray maalin kasta inaan dhalay wiil fiican, laakiin adigu aad arrintaasi ka warhaynin. saalax dhulka ayuu fadhiistay isaga oo ooyaya. markii ugu horreysay ayuuna fahmay aabbihii ma doonayn wax badan. waxa uu doonaya oo keliya inay waqti wada qaataan, jacaylkiisana uu siiyo, iyo sidoo kale inay dareen wada qaataan. habeenkaas saalax ma seexan. wuxuuna xasuustay hadalladii ahaa maalmihii aabbihii sugayey, waqtiyadii uu iska indhatirayey, iyo erayadii uu u degdegayey iyo dhaqdhaqaaqii uu samaynayey. wuxuuna yidhi isaga oo ooyaya, oo miyaan aabbahay ka fogaan jiray? waxaan waayey qof i jeclaa aniga oo aan dareemin ayuu yidhi isaga oo isla hadlayay saalax. bil kadib saalax noloshiisa waa isbedeshay. waxa uu bilaabay inuu dadka waayeelka ah waqti uu la qaato. waxa uu hooyadii la fadhiisan jiray saacado. waxaana uu fahmay dad badan waxa ay sugayaan hal shay oo keliya inay tahay inaad maqasho hadalladoodana aad dhegaysato. maalin ayuu dhalinyaro badan la hadlayay. wuxuuna yidhi isaga oo ilmaynaya, ha sugin ilaa iyo inta janaasada aad ka oogto qiimaha qofka ku jecel. ha ka mashquulin ilaa aad ilowdo dadka kuu soo jeeda hamiino badan. mararka qaar dadka ku jecel waa kuwa ugu aamusnaanta badan. isagoo ooyaya ayuu hadalladaasi ku yidhi dhallinyaradii ugana sheekeeyey. sababtoo ah qof walba waxa uu xasuustaa ayuu yidhi qofka uu dayacay markaas. waxaana halkaasi laga dareemay inay ooyin badan samaynayeen dhallinyarada uu la hadlayay. waanida qalbi taabadka ahayd ee halkaasi ay isku wadaarsadeen aanan kula wadaagayno qisadeenna maanta. qiso iyo waano TV ayaa waxa ay noqonaysaa aabbe iyo hooyo ma doonayaan lacagtaada, waxa ay doonayaan waqtigaaga. dadka ku jecel mararka qaar waa kuwa ugu aamusnaanta badan. ha sugin geerida si aad u tidhaahdo waa ku jeclaa. waqtiga aad maanta siiso waalidka barito ayaad ka shalaayi doontaa haddii aad ka faa'iidaysan weyso waqtiga intaad haysato. waqtiga aad maanta siidana wuxuu kuu noqon doonaa miro aad gurato, laakiin haddii aadan waqti siinin dib dambe ayaad ka shalaayi doonta ayuu ku yidhi. dadka qaar waxa ay rabaan hadiyado,
laakiin waalidku waxa ay rabaan adiga. halkaas waxaa laga dareemayaa dadka kale iyo waalidka farqiga u dhaxeeya. wahagaagka baawadayaal weli waxaad la socoteen barnaamijkeena qiso iyo waano, waxaadna kala socoteen tv-ganaga. weli waxaan ku guda jirnaa sheekadeenna ama qisooyinkanaga maante. ninkii taajirka ahaa bal eegalkan, ninkii taajirka ahaa ee hurdada waayey. ma kula tahay nin taajira? bal qiyaas inta aan gudaha sheekada u gelin sabab qof taajira ay hurdo u wey karto. waxaa jiray nin aad u taajira oo magaalada weyn laga yaqaanay. waxa uu lahaa guryo waaweyn, gaari qaali ah, ilaalo badan iyo sidoo kale iyo lacag aysan dadku tirin karin. laakiin hameen kasta waxa uu ku noolaa murugo. hurdo ma seexan jirin ninkaas taajirka oo intaasu dhaqaala gacanta ku haysta. qalbigiisu ma uusan deganayn. maalin isaga oo gaarigiisa raaxada wata ayuu arkay nin faqri ah oo waddada dhinaceeda fadhiya, kaas oo aan iska qoslaya una muuqda qof aan muruga saarayn. carruur ayuu la ciyaarayay. taajirka ayaa istaagay. waxa uu yidhi, sidee ayaad u qoslaysaa adiga oo aan waxba haysan? ninkii faqriga ahaa ayaa dhool caddeeyey isagoo eegaya dhinaca ninka taajirka, waxaana uu ku yidhi hadallo uu si weyn ula yaabay. wuxuu yidhi, waxaan haystaa wax aad adigu weysay. taajirkii ayaa yaabay. maxaan waayey ayuu yidhi ninkii taajirka ahaa. ninkii waxa uu ku yidhi, qalbi deggan ayaan anigu haystaa. aamusnaan ayuuna arrintaasi ku jawaabay. ninkii taajirka ahaa wuxuu yidhi, qalbigayga waa mid deggan, waa mid aan si qabow aan u noolahay. taasna ma haysatid adiga ayuu yidhi, oo walaac iyo walaahoon ayaad ku nooshahay. taajirkii hameenkaas marka ugu horraysay ayuu ogaaday farxadda inaysan ahayn mid lacagta ku xidhan. waxaa jira dad badan oo aan dhaqaale haysan haddana aada u faraxsan. dad lacag leh laakiin qalbiga uu jaban yahay oo dhibaato weyn wajahaya, iyo dad wax yar haysta laakiin farxad ku nool iyo damaashaad. waa hagaage qodobada ugu dambeeyay aan ku soo xirayna sheekadeenna ama qisadeenna waana tv ayaa maanta waxay noqonaysaa lacagtu wax walba ma iibsan karto, ama lacagta wax walba laguma iibsan karo. qalbiga deggan ayaa ka qiimo badan wax walba hanti badan oo aad haysato. farxaddaada dhabta ah waxay ku jirtaa jaceylka, deganaan iyo sidoo kale nolol nadiif ah oo aysan ku jirin dhibaato iyo fakar. dad badan waxa ay raadinayaan lacag, laakiin qalbigoodu waxa uu dhuminayaa dhammaan kalsoonidii nolosha. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow, markaad dhegaysateen labada sheeko, aabbaha ooyey iyo sidoo kale ninkii taajirka ahaa ee jiifan waayey iyo wixii kala qabsaday ninkii faqiirka ahaa ee waddada qarkeeda ama waddada dhinaceeda wiilasha ama carruurta yaryar kula ciyaarayay, maxaa kaaga baxay? ma aaminsan tahay adigu in qof taajira ay intaasoo idil ay ku dhici karto? ma kula tahay marka laga hadlayo guryaha ay leeyihiin faqiiriinta iyo guryaha taajiriinta inay qosol badan yihiin, oo ciyaar badan yihiin, oo damaashaad badan yihiin dadka faqiirka ah? maxaa keena xaafadaha deriska ah ee qaarkood ay taajiriintu degan yihiin, qaarkoodna faqiiriintu ay degan yihiin, had iyo jeeraale in laga qoslayo, laga faraxsan yahay guryahaas faqiiriinta, balse guryaha taajiriintu ay yihiin kuwo aamusan oo mar walba culays iyo walaahoona ka jiro? qofta shakhsiga ah ma waxay dan ugu jirtaa inay hesho wax taajirnimo ay ku weyso hurdo, mise waxay dan ugu jirtaa inay hesho nolol wanaagsan oo ay ku nasato dadkeedana ay kula joogto? waa hagaag, adigu maxaad ka baratay doodan? maxaad ka baratay sheekada labada nin dhex maraysay qisada ah?
maxaad danaynaysaa adigu inaad noqoto mataajirkii hurdada waayey mise waxaad rabtaa inaad noqoto faqiirkii qoslayey mise waxaad rabtaa inaad noqoto taajir qof aan taajir ahayn faqiirna ahayn laakiin nolosheeda haysata si raaxaana u nool suurtagal makaa tahay haddaan dib u laabana sheekada aabbaha uu ku wacaya inaad sii socoto ha dhibsan dhibna hau arkin marka uu kuu yeerayo fursad ayaad haysataa maalintaas laakiin maalinta aad weyso oo uu kuu yeeri waayo oo aad 2 mitir soo geliso adoo dad kale soo duugaan ee laguu sheegay in aabbaha dhintay waa maalinta kugu horreysa ee culayska noloshu si dhaba kugu bilaabanayo daawadayaashii qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qisadeennii maanta oo aad kala socoteen tv-geenna qiso waana t v intaan mar kale kulmayna waxaan kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo ammaanaad lah fadlan subscribe leeg iyo sheerna siiya oo meel wanaagsan ina gaarsiiya kuna sheergareeya sheekadan baraha bulshada si saaxiibadiina ee garab fiican inoo siiyaan mahadsanidin saaxiibayaal